بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal insha allahu tacaala waxaan idinla wadaagi doonaa laba qiso oo labaduba midba midka kale ay ka daran tahay, oo cajiiba, oo aada u la yaab leh, oo u baahan in badan la isdul taago, lagana fakaro, laguna camal falo, laguna cibro qaato. qisada koowaad waxay ka warramaysaa qur-aan akhrinta, qur-aanka weyn akhrintiisa fadliga ku jirta iyo dheeraadkiisa ayay ka warramaysaa. wuxuu soo saaray imaamu albukhaari fii saxiixihi, wuxuu ku soo saaray in nin ka mid ah saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim oo la dhaho usayd ibnu xudayr, saxaabigaasi uu akhrinayay suurad ka mida qur'aanka kariimka. imaamu albukhaari wuxuu yihi waa suurati alkahfi weeye, axaadiid kalena ay tilmaamayso waxay ahayd suurati albaqara. calaa kulli xaal suurad ka mida suuradaha qur'aanka kariimka ayuu akhrinayo saxaabiga kan. dabadeedna siduu u akhrinayayba waxaa korkiisa timi daruur ayaa timi, marka agtiisana waxaa ku xidhnaa faras, lugaha ayuu ka dabranaa markaa faraskaasi. markaa daruurtaasi ay soo dhowaatay oo ay ku soo dhowaatay ninkii qur'aanka akhrinayay, ayaa faraskii wuxuu bilaabay inuu boodboodo oo u xamxamleeyo. dabadeedna waa cabsaday saxaabigii, oo wiil yar ama ilmo yar oo uu haystay buu uga cabsaday inuu faraskaasi uu ku tunto ama uu waxyeeleey. markaasuu joojiyey aayaadkii qur-aanka ahaa ee uu akhrinayay. kadibna nebiga ayuu u sheegay sala allahu calayhi wasalam. markaasuu wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam, tilka asakiina tanazalat bilqur'aan, taasi waa xasiloonnidii ku soo degtay qur'aan akhrintaada ku soo degtay. waa malaa'igtii rabbi subxaanahu wa tacaala oo ku soo dejinaya markaa ruuxii mu'minkaha markuu akhrinayo kitaabka qur'aanka ee ah waxyigii ilaahay subxaana wa tacaala, ku soo dejinaysa sakiinada iyo deganaanshaha iyo xasiloonnida. waa karaamo ka dhacday saxaabigaas. riwaayaad kale ay tilmaamayso inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhahay saxaabiga kan, wad sii akhri usayd ibnu xudayrow. markaasuu dhahay saxaabigii, yaa rasuul allah, waxaan kugu idhi shalay bay igu dhacday ama xalay bay igu dhacday qisada tani, adiguna waxaad ii faraysaa inaan sii akhriyo. waxaynu ka fahmaynaa halkaa in isla ninka saxaabiga ah oo xabiibka moxamed sala allahu calayh wasalam warkii u sheegaya ayaad mooddaa nebigu inuu toosba u arkaba, aad moodidba inuu shaashad ka daawanayaba saxaabigaas, yacni sakiinadii ku soo degtay. markaasuu wuxuu dhahay iqra akhri oo akhri. wuxuu tilmaamay haddii aad akhrini lahayd waxa ay xasiloonnidaasi ama daruurtaasi ay ka wada iftiimi lahayd ama ilayskeedu uu nuurin lahaa dhammaan magaalada madiina. waa cajiib, waa arrin la yaab leh. bal u fiirsada markaa qur'aan akhrinta ilaahay agtiisa meeshay ka taagan tahay. qisada kale waxa ay iyaduna ku saabsiisan tahay saxaabi ka mid a saxaabadii rasuulka, oo waxaa soo wariyey ama soo saaray
xadiidka qisada tan ibnu abidunya duruqyo badan oo kalena way leedahay. xadiidka waxaa warinaya Anas ibnu Malik radiallahu canh, wuxuu dhahay nin ka mida saxaabadii rasuulka oo ahaa nin reer ansaareed ah oo lagu kunyayn jiray ama naanaystiisu ay ahayd aba mucalliq, ayaa wuxuu ahaa nin ganacsada ah, taajir buu ahaa, ka baac mushtareeye xoolihiisi. marka isagoo xoolihiisii ka soo baac mushtareeyey oo meel socdaba waxaa ka soo horbaxay nin tuug ah. wuxuu doonay markaa ninka tuugga ahi inuu ninkan uu dilo, xoolihiisana uu qaato uu dhaco. markaasuu wuxuu dhahay, saxaabigiibaa wuxuu yidhi, war nin yahow xoolaha oo dhan wada qaado, anigana naftayda ii badbaadi buu yidhi. wuxuu dhahay tuuggii ama budhcaddii markaa meesha joogtay, xoolahaaga shaki kuma jiro inaan qaadanayo, laakiin waxaan rabaa dhiiggaaga. subxaana allah. ninkii saxaabigaabaa wuxuu yidhi, haddaba haddii aad kollayba i dilaysid ii oggolow aan tukado 4 ragcadoode. waa loo oggolaaday. subxaana allah. kolkuu ku jiray sujuuddii ugu dambaysay ayuu wuxuu ku baryay rabbigii duca aad iyo aad u la yaab. wuxuu yidhi, yaa waduud yaa waduud yaa da alcarshi almajiid yaa facaalan lima yuriid as'aluka bicizika aladii laa yuraam وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني 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 يا مغيث أغثني. wuxuu leeyahay saxaabiga kani isagoo baryaya rabbigii subxaana wa tacaala, gargaarahow ii gargaar, rabbiga gargaaraha ahow ii gargaar buu leeyay. 3 jeer markuu ku celiyey kelimaadkaas ayaa wuxuu arkayba nin faris ah, fardafuulo ah, oo ninkii tuugga ahaa kaga takhallusayba. subxaanaka rabbana. ninkii wuu yaabay, waa cajabay, waa amakaagay. dabadeedna wuxuu yidhi, war ninkaagan khayrka qabow ee barakaysanow ee ilaahaygu ka furtayow maxaad ahayd? wuxuu dhahay ninkii, waxaan ahay malag ka yimi samada 4aad buu yidhi. markaad tidhi yaa mugiith aghithnii ayaa waxaa gilgilantay ama gariirtay samadii 1aad. markaasaad ku celisoo tidhi yaa mugiith aghithnii, markaasaa waxaa gilgilantay samadii 2aad. subxaana allah. markaasaad tidhi yaa mugiith aghithnii. dabadeedna anaa rabbigay ka dalbado ku dhahay, rabbiyow waa duco, qof dhibbane oo dhib ay haysatay ii oggolo aan ka fujiye. waa lay oggolaaday, waanan dilay tuuggii. laa xawla walaa quwata ila billah. huwa facaalu lima yuriid. alle waa ka wax allaala wuxuu doona sameeya. ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. ilaahay weeye ka difaacaya dadka mu'miniinta ah. ducada makruubka ama qofka dhibban ducadiisu waa mustajaabu dacwa. ducada waa laga aqbalaa. isaga iyo ruuxa madluumka ah ee lagu gardarooday ama dulmiga lagula kacay. waa arrin cajiiba, waa la yaab. ilaahay baynu ka baryanaa subxaana wa tacaala inuu inakana inaga aqbalo ducooyinkeenna. 2 qiso waxayna tusinaysa oo ay ka turjumayaan, midna qur'aan akhrinta iyo fadligeeda, midna dikriga allah subxaana wa tacaala fadligeeda
marka waxaan naftayda iyo nafihiinaba ugu dardaarmayaa in aynu ilaalino qur'aan akhrinta iyo ducooyinka iyo dikriga iyo xuska allah subxaanahu wa tacaala